الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قال الله تعالى في محكم الكتاب العزيز: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة waxay inoo cadeynaysaa aadna moodaaba inay hadda soo degtay in uusan iimaankooda uusan anfici doonin markii mushkiladda iyo cadaabka alle la arko. oo iimaan wuxuu saxiixba ku yahay inta aad xaalatul ikhtiyaar aad leedahay. haddaad marka inta ikhtiyaarka iska qaadid maalintii ay runtu ku hor timaado allow tirahdid, waa waxaan shaqaynayn. sunnadii ilaahayana aada kuna aroori, kuwo badan oo kaa horiyana ku arooreen, adna aada dabagelaysid, adna aada dabageli. marka arrinta cajaa'ibta leh oo hadda taagan waxay tahay oon caawa aan ka niraahno aan doonayno waxay tahay sheekadan dajaaligaahee dajaal cabudyada ee indhawaalaba ay wadeen. sababta adiga oo muslim ah oo dee haddii un ruuxa muslimka horta markaas uu moog yahayna de waaba inkastoo hadda aanba la oran karinba ruux haddaba arrimahaas ku dhex jiro wax moog oo inuu ismoodmoosiinayo inuu ismoogeysiinayo wuxuun ay ka tahay oo maanta jilliinkuba uu noqdayba waxa keliya wax lagu raadiyo. laakiin isweydiinta iyo su-aasha meesha taalaa waxay tahay maxaa ruuxu muslim ah ku kalifaya inuu ilaa iyo heerkan dajaaleed ee dajaajilada shaydaanka caabuda inuu ilaa heerkaas la gaaro ku khasbi kara. keliya waxaa ku khasbi karta un waa in aanu iimaan jirin. arrintan hadda inaan caawa aan ka hadalna ay tahayna waxay tahay oo kolley miiska noo saaran su-aal furan oo aan weydiinayo qof kasta oo wuxuun markaan adiga dhaqdhaqa u ku dambeeyo. waxayna tahay sixirkan oo xargaha goostay waxaan la daldalayo dadkii dhammaaba oo intoodii badneedba intoodii adigu waktigu la tegay ee seeftu qaaday ee markoodii horeba joogi waayey iyo kolley in oo adigu ilaahay ku imtixaamayo oo dee sabab aysan ayagaba sababsanay wax uun markaas loo soo waariday ay tahay sixirkan xargaha goostay iyo ishaan un la sheegsheegi iyo nimankan adigu cilaajleyda dajaaliinta ku haya waxaa lagu soo whatsappka lagu soo raaciyey iyo taleefonka lagu soo raaciyey iyo xaggay ka tahay jinni bad laga keeno badda lasoo tilaabiyaa lagu soo diray iyo jinniyaa laisku soo diraa iyo waxaas qulaabinaya maxaa ilaa iyo heerkan maxaa gaarsiiyey waa su-aashaas oo wixii fiyo inay isweydiiyaan ay tahay. dabcan ma waysan wax organized aysan ahayn oo isku xiran oo ajando la wada fulinaya aysan ahayn. imise kooxoodaana isku xiran. su-aalahaasi haddii aad inta isweydiisid jawaabtoodana aada si madax banaan u raadsid xaqiiqda waa helaysa. laakiin waa qof ma
waa qofkii xaqiiqda u qasda. Markaan marka dulucdeeda aan hore u galo, waxaan calan waleynaya dhammaantood waa sheeko aan cagahayaga ku doonanay. wakhasira hunaalika alkaafiruun kuwa alle uu leeyahayne aan macooda ku noqonay annagoo indhahayga ay shan yihiin islaam sheeganeen. waxaa la hayaa dad muslimiin sheeganaya oo kulley sunnadii rabbaanigaheedaa ku aroortay iyo kulley caro ilaahay u waajibtay oo waxaas u geynaysa maahana oo wax kale u geyn kara aanay jirin. in marka ay islaamka dhex joogaanna islaam yihiin, markii adugu waqtiyada qaarkoodna fursad loo hela fursadda awal waaba la raadin jiraa, hadda waaba sby phonekaaba oo live ba lagu yahay, online ba lagu yahay. waxaa jira dad muslimiin sheeganaya oo weliba af soomaali ku hadla oo loo fiiriyo tarot card wax la yiraahdo, kaarad oo qaab turubeed leh, loo rogrogo, loo fiiriyo, saacad loogu fiiriyo, mar oo adigu welwel iyo cabsi lagu abuuro, mar adigu waxaa kuu kala kacaya la yiraahdo waxna loo kala kiciyo, ilaan si ay wixii u rumaystaan oo u aaminaan waa in wuxuun loo sameeyo. waxaa sidaas sameynayana yeeyihiin psychic dadkan la yiraahdo, faaliye iyo habar faalisa ah yaa mobeelada u dhex fadhiya. waana arrin network ah oo isku xiran dee faalisadii iyo faaliyihii oo haddana mobeelkaaga furanahaya oo privacy-gaaga helaya oo xogtaadoo dhan ba halkaas kaala socda, kaa controli yaa meeshaan socotana yaa waxaas fududeynaya oo inay meel maraan socodsiinaya qolyahan freemasonka la yiraahday ma'suumiyada ah. ooba diin ahaan aba waxaa loo faafinaaba iyo dhaqan ahaanba waxaan arkaynay dajaaliga ahee raggiina meel lagu xareystay oo ayagayba la saarsaaray oo xataa kaararku ayaga waxaaba loo fiiriyaaba adiga taas waxbaha hore usii geli maaye. qof walba oo kulley waxaas ku hooshan in uun la og yahay unbaa u muujinaa maahine wax laga hadlo iyo wax laga sii hadlo ma ah. dumarkiina dee wax uun caagag laiskugu dhiibay iyo wax ayadaas markaa shayaadiin lagu raray oo haddana dajaal kale loo gacangeliyo oo si uun lacag uga sameeyo ayba tahay. dajaalka kalena gacanta loo geliyo markii laga yimaado dadkii uun in ay sidaan u dufoobaan, afkana islaamnimo ka sheegtaan, ay ilaa heerkaas gaarsiisnaadaan oo xeradaa ay u xereystaan. waxa kalifi kara maxayd iimaan daridaas kule waa iimaan daridaas markii aan ka nimaadno maxaa loo waayey. bal intii xarootay waa xarootay oo kulley jamaaco badana xarootay, hirhirna waa loo sii socdaa. maxaa loo waayey dee nimankan social mediaha noo dhex fadhiya ee qaarkood youtuberada sheeganaya, qaarkood mashaa'ikhda sheeganaya, wax ka hadlaya kaararkan dadka loo rogrogayo ee saacadda loogu fiirinayo, dajaaleedkaas sheeka dajaaleedkaas loo gedgedinayo. wax ka hadla maxaa loo waayey oo ka jooga oo yiraahda. mise dabcan kulley hadda uun markii uun kilibkan lala dego
waxaa laga yaabaa asbuucyada soo socda ama adiga dhowrka bilowda hadda imaan doona in iyadoo oo siyaabo kale loo farsameeyey maya farsamo kaleba ma ahina la marin habaabinayo marar habaabin hor iyadoo la sameynayo wax ka hadli doona in la arko waa laga yaaba laakiin muddada intaan la eg ee sheekadan soo calan waleynaysa sixire xaggaa ka dhacdo xaggaa wax loo soo mariyo ficiis gado cali waxa la daldalayo maxaa loo waayey halkoo sheekh uu yirahdo waxaasaa jiray waxaas dadka waxa laga yiraahdo oo liwaadkan faafay wuxuu u faafay qaabkaas u faafaya waxa laga yiraahdo oo naagahan waasha dhaqan iyo diin ka tagay sababtaas uga tagay oo dadka xanuunada kala duwan lagu raray sababtaas loogu raray wax saa u yiraahdo maxaa loo waayey jawaabtaas qof walba oo markaan uu clip gaaro caqli u saaxiib ah yaan u deynayaa isna waa baaran karaa kolley igama dhega iyo indhajiridiin inta anigu hadda aan soo ogaadayna labadeeda waa la wada ogyahay ama saddexdeedaa la ogyahay ama adiguba waa ogaan kartaa laakiin interview waxaan uga digi lahaa xoogaa uun dhaqanaya dhaqdhaqa ku dambeeyo 3 shay iska ilaaliyo dajaajiladaas waxay adeegsanayaan dajaajila ay ku shaqaystaan oo shaydaan caabudyo ah oo ina hebel aada leedahay oo mararka qaarkoodna qofka kuugu dhow uu noqon karo keliyana waxa uun ujeedadu ay tahay in iimaankaaga iyo islaamnimadaada lagaa fasaxado khadka lagaa tuuro nolosha lagaa rido kadibna caag bombala ah oo sidii la rabo laga yeelo howshaasaana hadda socota qaabka ugu fudud oo sidaan lagu gaari karo qoladan mas-uuliyadda istusana maxay tahay dadkan oo dhan in kaahin iyo sixiroole iyo curaafiiste laga adeejiyo oo halka ugu ciyaaro asagana loo fududeeyo baraafisigaaga iyo xogtaada inuu helo saacad daqiiqad u helo xaggee loo marsiinayaa wixii hore waa iskala yimid smartphone baa wataayo xagga ficiiso youtube kan galaayo facebooka ka tuuraayo xaggay ii taagantahay internetkayga waa click ii dheh waxyaabahaas dhan aan isku qancinayno waa meeshan loo soo maro spy phone smartphone maahana waa spy phone asagaasaa lagaa controlaya lagaala socdaa dee habar curaafiisataa faalisa ah oo spy phonekaaga kaala socota fursad ku waayi mayso ay kugu gediso fursad kuu waayi mayso ee kugu dhacdo fursad kuu waayi mayso ay iimaankaaga shaki kaa geliso fursad kuugu waayi mayso ee sun kugu laqsiiso waxaad arkaysaan oo dhanna waa wada sumaysan yihin marka bala dadka hadda jirow aaway daargaradkii iyo culamadii iyo wixii la sheegayay iyo wixii ma dhammaadeen waxaan uu markii mawlid la sheego aan afkaba isku qabanin ama waxyaaba aan hadda wax hadda lagaba hadlaba ahayn intaas enerjigooda gelinaya xaaladan hadda ay bulshadan ku socotay ku sugan tahay ee kusii socotay ee khadkaba uga baxdayba maxaa wax hataa kelmad wax ka yiraahdo loo la-ay ooba yirahdaba waxaan kaararkan aad iyo oo spy phoneka aan iyo waxaan hoosta ku haysataan saacadda ii fiiriya aad leedahay markaa rabana aad leedahay saful awala ah ka jooga waxa yirahda maxaa loo la-ay wax soo bandhiga maxaa loo la-ay youtuberadan oo 24 saac siraa heenaa iyo digtaas qulaabinaya
bahashan caadiyaalka maxay la arki la-yi arrimahaasoo dhan waa un sheeko isku xiran organized ah oo annaga kooxdaas aan noo calaamuleyso kooxdaas un baana hor joogta teeda kale qofkii taas waa qodob oo adigu uun in aad dadkaasi si shaksi iskaga ilaalisid waa qodobka labaad oo aan tala ahaan kugu soo jeedinayo qofkii kaliibkan hela oo fayow wuxuu yahay bataatanba in aad iska ilaalisid oo shayga lagu soo maraya uu yahay midkan aan leedahay anigu smartphone baa haystaa oo wax walba click aan ka siisanayeen dhibka intuu kugu hayaa ka badanay asagaas bal inaad iska isticmaal laakiin xad uu baraafasigaaga uu dhex galo oo baraafasigaaga uu ku ogaado hala gaarin hana gaarsiin waa midda saddexaadee iimaan saadiqa la imo ilaahna isku xir waana arrin oo tajriibo oo dhacday oo la hubo oo dee in badan oo taas tajriibiyey ay ku badbaadeen sida aad ilaah iskugu xirayso iimaan saadiqa oo la imaanaysidna waxay tahay dadkan hadda oo galbaday waaba galbadeenba in aad kuuba horta ictiqaad saliima la timaadid oo ilaaha aada aaminsan tahay dajaalkan hadda la iska gadaayo miya mise ilaahayga khaaliqul makhluuq ahaa ee koonkan eheysiiye ee adiga ku eheysiiye ee makhluuqiisa waxba ka shabihin ee daadadiisa iyo khilqiyadiisa iyo waxdaaniyadiisaba la keli ah yaad rumaysanta inaad kaas rumaysan tahay iyo inaadan rumaysaneen maxaa caddeen u haysa see ku caddaysan karta markii aad taas ku dadaashid markaad ku dadaalaysidna calaa cilmin inaad u qaadatid oo calaa cilmin haddana aada uga qaadatid hadday wax ku bilaaban yihiin nasiibka haddayse waxba ku bilaabnayna dee dadka ehelkeeda u ah kuwaan ayaga laftooda dajaalinta ee qoladaas shaydaanka caabuday mas-uuliyada la shaqeysta ma ah culamo caamiliina raaso halkaa isku badbaadi waa arrin tajriiba oo lasoo ogaaday oo haddii aad sidaas samaysid aada badbaadaysid dad ku badbaaday caddeemadeedii maragalkeedii intaba la hayo saddexdaas haddaad samaysid xilli dajaaleedkan ee hadda lagu jiro 100% waxay u badan tahay inaad badbaadid kuwan kale marka dhubuqlayaasha ah waxaa leeyahay rasuuluna maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuuna yiri man ataa kaahinan haye oo fasadaqahu haye oo rumaysta faqad kadaba bimaa unzila calaa muxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh nabi maxamed wixii uu lagu soo dejiyey ninkaas waa beeniyey waa in dacaaba anahu muuminan ha sheego ama ha sheegan kolleyba horta kuwa aan ogahayba wuxuuda xataa sheegasho inay ayaga laftooda is ogyihiin ee jaliinla ka tahay kuwaas horta anigu kuma jiro oo xaalkooda waxa waaye ayaga u taalaa maalin aan maanta ahayna helaya laakiin ruuxu uu dhaqdhaq ku dambeeyo inta isbay phonekaaga ee habar faalisaa kuu dhex fadhido wax kuu yaala mala
intaad qoladan shaydaanka caabuda aada daba nagnag leedahay wax kuu yaala ma laha. intaa is leedahay waxawaaye waa kasoo laaban doontaa hadda ku xad oo kasoo dhifso wax kuu yaala ma laha. falam yakun yanfacuhum iimaanuhum kuwaa la yiri aada ku biiraysa. sunnada ilaahayna waa kugu dul arooreysaa sida in badan oo ismoodmoodsiiyey ee ugu aroortay. hadduu dhaqdhaq kugu dambeeyo, haddii ay marka guud ahaanba bal shaksigan dhaqdhaqa ku dambeynaya aan leenahay inta iska dayno, guud ahaanba hadday idinku guud ahaantiinba ee wuxuun idinku dambeeyaan oo adiga gabdhihiina iyo dumarkiina iyo jiritaankiina aada u naxaysaan, maanta caalamku waa kala miirmay. qayb dajaalkaas u kooreysan oo hadda canlawaleynaysa oo diimihii macmalka ahaa ee wathaniga ahaayaa dhammaan kasoo tilaabsaday. hadduu yahuud ahaan lahayd, hadday kristaan ahaan lahaa, hadduu buudisti iyo digdig iyo waxaas ahaan lahaayeen, haddii ay lo caabud ahaan lahaayeen, waxaasoo dhan inta kasoo takhalusay maanta islaam keliya hortaagan, ayaga iyo islaam challenge gareynaya oo challengekaas ka dhexeeyo. haddaad og tahayna aada og tahay, haddaada ogeyna xaaladda ay halkaas ay gaarsiisan tahay, maanta labadaas saf waa inaad toos ugu biirtid. subaxiina xagga usii soconaa, galabtiina waa kasoo soconaya, ma isqaadanayso. inta yarta lagu siiyeyna waa cimrigan farakutiriska. intii aada ayaga ka aruursay haddii aada barkinta hoosteeda inta gashatid aada iska rogtidna ayadaasaaba kaasoo hari imaan laawo. haddii kale oo aada adiga oon ka iimaanka ilaahay ka qaada aada ahayn, wadda waxaad ku taagan tahay oo qodxo badan, luqluqyo badan leh, howd oo bartankeeda uu ku yaalo, abeesooyin noocyo badan leh, uguna sun badan tahay mid aada sheikh moodeysid, uguna sun badan tahay mid aad ehel moodeysid. abeesooyinkaas ugu sun badan tahay mid aad dadka aada is leedahay waaba mid ruuxu ugu roog aarjijiifa. sida keliya aada uga badbaadi kartidna waa inaad istiqaamo la timaadid. isbyphone-kan oo lagaa kontarolayana aada iska ilaalisid, kuwaana aada iska ilaalisid. waa saddexdii aan markii horeba kuu hormarin. kuwaan nagnaglayaasha ee dajaaliinta ee dajaal caabudyadaha ee dajaal inay soo dhaweeyaan u diyaar garoobeen, ay ummadan masaakiinta ay lu goonayaan. haddii uu wuxuun ku dambeeyo, alaysa minkum rajulun rashiid, yaan idinkaga bixi. allahuma arina alxaqa xaqa warzuqna itibaaca wa arina albaatila baatila warzuqna ijtinaabah. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيتها ولا ضالا إلا هديته ولا مضلا إلا هلكت. صلى الله وبارك على سيدنا النبي.